goobka nabadda ee degmada Garadag waxaa maanta ka qabsoomay madal ballaaran oo kulmisay badiba haldoorka cuqaasha waayeelka iyo waxgaradka iyo waliba maamulka degmada Garadag waxaana gabi ahaantoodba si mug iyo miisaan loo taageereen hanka musharax wasiir Xasan Maxamed Cali Gafaadhi oo maalintiisa la shaaciyay inuu sharaxan yahay gudoomiyaha xisbiga talada dalka haya kulmiye waxaana xeerbeegsidan kala duwan goobka nabadda ka hadlay oo tusaaleeyeen inay taageersan yihiin sidoo kalena cod iyo cudud la garab taagan yihiin wasiir Xasan Maxamed Cali Gafaadhi waxaana kamid ah hadaladoodii sida tan halkan aan isugu nimi waxaan ku muujinaynaa ama ku taageeraynaa musharaxnimada gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo uu shaaciyay wasiirka caafimaadka Xasan Maxamed Cali waxaan leenahay waa soo dhaweynaynaa waa hambalyeeynaa waa taageersanahay halkan waxaanu ka taageeraynaa Xasan Maxamed Cali Gafaadhi oo shalay shaaciyay inuu musharax u yahay xisbiga gudoomiyaha xisbiga kulmiye aad iyo aad ayaanu u taageeraynaa waxaanu leenahay xisbiga kulmiye xaq buu u leeyahay Xasan Maxamed Cali horuu ugu tanaasilay xisbigan oo ugu tanaasilay oo iyadoo aan dadkana uu taageera uu ka haysto ugu tanaasilay maqsadka halkan aan ugu soo baxnay waxa weeye musharaxa gudoomiyaha xisbiga kulmiye u sharaxan Xasan Maxamed Cali Gafaadhi ana wasiirka caafimaadka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waanu garab taaganahay waxaanu ku taageeraynaa wasiirka caafimaadka Maxamed Xasan Gafaadhi waxa dadkan u soo baxay waa taageerayaashiisii waa kulmiye Garadag iyo kulmiye mana ballan ismana waayaan ballan ma dhigtaan ismana waayaan maanta xafladda waxaanu ku taageeraynaa wasiirka uu sharaxan gudoomiyaha xisbiga kulmiye kale oo ku faanayo wasiir Xasan Maxamed Cali Gafaadhi waxaa kamid ah codka deegaanka Xasan Maxamed Cali waa nin cod buuxa ka haysta 55,000 cod ku dhow ka haysta deegaanada Cirif iyo Garadag Ceerigaabo 50,000 ka haysta 30,000 caynaba haysta tog dheer oo 100,000 haysta Hargeysa iyo Berbera yada hadalkood badaa laascaanood yaga haba soo hadal qaadin 200,000 kumba waxa weeye waa taageeradiisa marka maanta ma aha maalin oo cid kula gorgortamo xisbiga kulmiye halkani waa xaflad aynu ku taageerayno musharaxa gudoomiyaha xisbiga kulmiye Xasan Maxamed Cali Gafaadhi marka waxaan leeyahay horta way muuqataa taageerada reer Garadag sida uga soo qayb galeen way muuqanaysaa oo cidna loo sheegi maayo hal mid baan ku daraya waxaan leeyahay qoladaanu saaxiibadan ahay iyagu iskaranaya wardee xagga siyaasadda dad siman baynu nahay oo qaybsi baynu ku leenahay maalin walba inaad soo taagtaan waa laga fiican yahay maanta annaga u leeyahay idin leenahay waa qolada reer tolkayo xisbiga kulmiyana waxaan leeyahay labadii madaxweyne u dambeeyay waxa laga imaamaday geedkan goobka Garadag Xasan Maxamed Cali Gafaadhi hadii maanta xisbiga kulmiye gudoomiyihiisa loo dhiibo lagula shaqeeyo ay reer kulmiye u codeeyaan wuxuu noqon doonaa madaxweynihii saddexaad ee geedkan lagu imaamaday aad iyo aad ugu mahad celinaya dadweynaha sharafta leh ee isugu yimi halkan iyagoo awoodooda taageero muujinaya murashaxa gudoomiyaha xisbiga kulmiye Xasan Maxamed Cali waxaan aad iyo aad ugu mahadsantiin magacayga Xasan oo warku gaara baan ku gudbinayaa ee gashinimaad ku leedahay haduu guriga soo aado oo waxaad geysatay iyo godobna ku sheegtay oo waliba uu gooyo iyo gomoro ka doonto waa inaad runta u geejiso oo la gurisa inaanu ku taageerno waa madal kulmisay dhammaan dadweynihii reer Garadag ee kala ahaa saddexda xisbi qaran doorashooyinkii dhaweyda soo maray sidii rag hore ka dhawaajiyay hal mar kulmisay qulubtooda iyo inay si isku mid ah u yimaadaan geedka caanka ee degmada Garadag halka kulmisay waxa weeye hanka gudoomiyanimo ee uu doonayo shalay shaaciyay Xasan Maxamed Cali Gafaadhi wasiirka wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland bulshooyinka reer Garadag ee isugu soo baxay inay taageero mug iyo miisaan leh u muujiyaan
musharaxa gudoomiye xisbiga kulmiye xasan maxamed cali gaafaadhi anigoo ku hadlaya magaca haweenka gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Garadag waxaanu halkan taageero mug iyo miisaan leh aanu halkan oo mar walba lagu guuleysto taageeradeeda iyo isumaadkeeda geedkan uu yahay geedkii guusha geedkii hooyada Somaliland laga asaaso waxaanu halkan taageero mug iyo miisaan leh aanu ku taageerinaa gudoomiyaha xasan maxamed cali halkan waxaanu isugu soo baxnay gudoomiyaha musharaxa xasan maxamed cali gaafaadhi waana hambalyeynaa waana taageeraynaa bacdi meeshu waa xaflad lagu taageerayo wasiirka caafimaadka una sharaxan gudoomiyaha xisbiga kulmiye markaa reer Garadag waxay u soo baxeen inay taageeraan wasiirka caafimaadka Cabdisalaam Jaamac telefishinka Sahan Garadag